السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا وناكسن كسو دوادا sumitbro.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Waxaan kusoo jirnay duruusteena taxanaheeda aan ku baranayna Adobe Photoshop. Waxaana soo darsigii horeeto ee maxaa la raahdaa Photoshop sidikeed inaan wax ka bedelo. So marka qaybtan waxaan ku qaadan doonaa waxaan ku qaadanaynaa work space cusub, qaabka loo sameeyo iyo qaabka maxaa la raahdaa panelska loo xiro iyo qaabka loo soo kiciyo ayaan ku qaadan doonaa. Okay, aan ugu galnaa marka darsigeena maanta. So marka toolskan haddaan fiirino qaybta toolska waan bedeli karnaa, falaarti waan jiidi karnaa, qaybta rabna ayaan dhigan karnaa. Waad jiidaa malena waa rara karaysaa, qaybta arta ayaa geli karaysaa. Calaamada yartadaan calaamada seriiska daan kale ku siiyeen waxaad arki karaysaa in laba qayb ay iga kala dhigayso. Calaamadaas marka waxay awood ku siinaysaa laba qayb ama laba fidqa inay ka kala dhigto. Okay, marka waxaan dhan waan xirxiri doonaa, kadibna waan soo kacsan doonaa. Sidoo kale tan waxaan samaysan doonaa work space cusub ama qaab cusub ayaan samaysan doonaa. Okay, marka dragging ayaan samaynaynaa, waa soo jiidaysaa, simple waa fududahay. soo jiid marka closing ayaan leynaa. marka qaab noocana marka ayaad u soo kicin karaysaa, waxyaabaha dhamsaas ayaad u soo bixinaysaa. Okay, saan ayaad u soo jiidaysaa, marka mid walbo geeskan ayaad soo dhigaysaa. Okay, maxaa la raahdaa so marka waan xirxiraynaa dhammaantooda. marka waan xirxiraynaa marka waxaan leenahay right click ayaan leenahay, kadibna waxaa la raahdaa right click ayaan leenahay, close ayaan leenahay, ama waxaan ku dhufan karaysaa falaarta geeska meesha close-ka caadiga calaamada iskalaabta ayaad ku dhufan karaysaa. So marka waxaad u jeedaan inay xirxir mooyaan wuu xirxirmay, waad u jeedaan maleenahay. Okay, hadda marka wax maxaa la raahdaa tools ma haysano, sidoo kale panels ma haysano. Photoshop qaleel ayaan hadda haysanaa oo ebera oo faaruq ah oo empty ah. haddii marka kaa xirmadaan oo kaleeto mid hadduu kaga xirmado kale meelaha ka soo kacsan lahayd oo kaleeto ayaan marka ku baraa. So marka qaybta Windowska ee qaybta Windowska ay ku wada jiraan toolska, panelska haddii kaa wada xirmaan oo kaleeto, qaybta aad ka helaysid qaybtan waxaa ku helaysaa Windowska ay ku wada jiraan. marka toolska marka waaba kanaaba option kan ayuu ka hooseeya toolska marka saan ayaad u soo kacsanaysaa. So marka waxaan sameynaynaa derbigiisa ayaan geenaynaa, meesha oval oo yaala ayaan geenaynaa, dragging ayaan sameynaynaa, waan jiidaynaa ilaa derbiga ka imaan. calaamadaas marka buluuga ay kuu soo baxdo ayaad ku sii daynaysaa. So marka derbigiisa ayuu hadda ku dhigay, booskiisa ayuu noo joogaa. Okay, layerska ayaan soo kacsanaynaa marka. Okay, layers. Okay, sidoo kaleeto waxaan soo qaadanaynaa channels, hal meel ayaan isla gelinaynaa. sidoo kaleeto waxaan soo qaadanaynaa maxaa la raahdaa path. So marka hal group ayaan rabnaa inaan ka dhigno. Se marka ugu dhiganaa hal group markaa ka dhigaysid maxaa la raahdaa markaa kusoo daraysid sidoo kaleeto oo hal group aad rabtid inaad ka dhigtid saddexdood oo kaleeto, waxaa samaynaysaa oo soo jiidaysaa calaamada. marka waa inuu afarta gees ee saarmato, afarta darbi waa inuu saarmaa. marka group aad ka dhigaysid afarta darbi waa inuu highlight bluega oo saarmaa. markaas ku sii day qaybta aragtida halkaas markaa ka dhiganaysaa. sidoo kale marka waa samaynaysaa, lama rabo hal gees oo kaliya ama hal ladiiq ama hal xariiqmo inuu kusoo bandhigo. hal xariiqmo marka uu kusoo bandhigo ama hal xariiqmo oo bluega marka kusoo baxdo, laba group ayay kala noqonayaan, laba qayb ayay kala noqonayaan. marka so marka si hal group aad ugu dhigtid oo kaleeto, marka afar gees calaamada afar geeska oo ku soo baxdo ayaad ku sii daynaysaa. Okay, so marka waxaan samaynaynaa derbiga ayaan ku dhejinaynaa. Okay, waan soo jiidaynaa marka dragging ayaan samaynaynaa, derbiga ayaan imaanaynaa. Okay, iyagana waan ku sii daynaynaa. sidoo kale waxaan kusoo darsanaynaa adjustments, sidoo kale waxaan kusoo darsanaynaa switches ayaan kusoo darsanaynaa, sidoo kale waxaan kusoo darsanaynaa navigator oo kaleeto ayaan kusoo darsanaynaa. So marka saddexdoodana hal group ayaan ka wada dhigaynaa, saddexdooda hal group ayaan ka dhigaynaa. adjustmentiga marka ugu horeeyo, switcheska ayaa ku xiga, navigatorka ayaa marka ugu dambeysayna.
so marka waan soo jiideynaa, waxaan ka dul marinaynaa layerska iyo falaarta marka hore ay kuu soo baxdo calaamad blue marka sidaas kuu soo baxdo ayaad ku sii deynaysaa. Okay, so marka hadda saan ayaa noo samaysmay. Hadda layerskeen way noo soo laabteen, toolsku way noo soo laabtay, panelska way noo soo laabteen. So marka waxaan rabnaa kuwo kaleeto inaan kusoo darsano ayuuna group kale ayaan ka dhigna ayaa rabnaa. Waxaan kusoo darsanaynaa actions ayaan kusoo darsanaynaa. Sidoo kaleeto waxaan kusoo darsanaynaa paragraph ayaan kusoo darsanaynaa. Marka intaan kale hal group ayay yihiin. Marka waxaan u baahanahay qaybtan sidooda inaan geeskan u dhigo. Marka waan soo jiidayaa, marka ay soo baxdo calaamad buluug ayaan kusii deynayaa. So marka kuwan kale marka way ii qarsan yihiin, waa collapse. Waa hadda kuwan way ii qarsan yihiin, kuwan kale way soo muujisan yihiin. Kuwan kale marka hadda ma xiri karayaa, qaybtan kale ma soo muuji karayaa. Ha, falaarta geeska dad ku dhufatid, qaybta layerska dhan way qarsoomi doonaan oo waxa ku soo bixi doona magacooda iyo iconska watan ay ku soo muuqanayaan. So kala qaybtan waa soo furi karaysaa. Falaarta yarta dad ku dhufatid waxaad ujeedaa inuu noo furma marka. Marka qaab noocaas marka aad u qari karaysaa, u soo muujin karaysaa. Marka layerska iyo waa soo muujisanayna. Qaab noocaas ayaa marka u soo muujisan karaysaa, u qarsan karaysaa. So marka waxaan sameysanay maxaa la yiraahdaa workspace cusub ayaan hadda sameysanay. Marka waxaan rabnaa inaan save gareysano workspace-ka, inaan save gareysano ayaan rabnaa. Waxaan leenahay new workspace meesha ku qoranta ayaa kala ku siisanaysaa. Workspace cusub ay samey. Magaca waxaan ula baxaynaa Summit Pro ayaan ula baxaynaa. Kadibna waxaan leenahay save ayaan leenahay. Okay, so marka panelska hadda ujeedaan waa rari karaya, meesha raba ayaa geli karaya. So marka uma baahnin waxaan rabnaa inaan marka iska xirno log aan saarno. Qaybta Windows-ka imaaw, kadib workspace meesha ku qoran tahay soo fur, kadib meesha ugu dambeysay ku qoran tahay log workspace oo ku okay marka click ku sii. So marka hadda ma rari karaysid, ujeeda malinaya waxa rabtaa sameysida xataa ma rari karaysid. So marka saas ayaad u loo gareysan karaysaa. Workspace qaabkaas ayaa loo sameeyaa. So kale waa deleedi karaysaa, qaabkii hore tan waa ku soo celi karaysaa. Qaabkaas ayaa loo sameeyaa workspace cusub, qaabkaas ayaa loo abuuraa. So kaleeto haddaa rabtid oo kaleeto qaybtan maxaa la yiraahdaa toolska inay kala hormarisid oo kaleeto bahalkan yarista saddexdan dhibac aad ujeedid, right click dheh, kadibna waxaa dhahdaa edit toolbar meesha ku qoran tahay. So marka kaartid ayaad hadda hormarsii karaysaa. Artboardka marka ayaan hormarsiinayaa, move toolka hoos iyo kan ayaan leeyahay, save ayaan leeyahay. Marka hadda fiiri marka waxa dhahaya haddaan maxaa la yiraahdaa move toolka right click dheh, waxaad aragtaa artboardka inuu hadda noo horeeyo. Sax, artboardka ayaa hadda noo horeeya. Marka saas ayaad u kala hormarin karaysaa. Qaybta aragtida ayaad hor keeni karaysaa. Sidoo kaleeto waxaad dhigi karaysaa clear toolska dhan marka way bixi doonaan, way qarsoomi doonaan. Kuwan hoose bis ayaa soo muujisan, kuwan kaleetana xitaa inta ayaad ka qari karaysaa ayagana. Kuwan marka inta ayaad ka soo muujinaysaa ayagana. Okay, marka waxaan leenahay restore defaultigiisa hore noogu soo celi dhan ayaan leenahay. Qaabkaas marka ayaad u kala bedeli karaysaa toolska. Wali xitaa waa delete karaysaa, midka rabtid ayaa delete karaysaa, toolka rabtid delete ayaa dhigi karaysaa. Shortcut-ka waa ka bedeli karaysaa. Sidoo kaleeto waxaad dhigi karaysaa oo kaleeto waa delete karaysaa. Shortcut-ka rabtid ayaad ka dhigi karaysaa. Sidoo kaleeto waa delete karaysaa haddaad u baahatid. Qayb dhan ayaad qayb kale ka hormarsii karaysaa. waad ujeedaa umaleynaa hadda rectangle-ka ayaan u soo hormarsiiyey. So hadda buu ujeedaa umaleynaa rectangle-ka ayaa hadda ugu horeeyo. Marka section dham ayaad ka hormari karaysaa section kaleeto. Simple waa fududahay. So marka restore default ayaan leenahay, defaultkiisa hore noogu soo celiyaan leenahay. Haddaad rabtid oo kaleeto inaad ka bedeshido maxaa la yiraahdaa shortcut-kana inta ayaad ka bedeli karaysaa. oo dhan ayaan leenahay. Marka sidoo kaleeto waxaan fiirinaynaa marka qaabka loo bedelo keyboard setting-ka. Tusaalahaan oo kaleeto marka aad save gareynaysid control S waaye, markii copy aad sameynaysid waa control C ayaa loo isticmaalaa. So marka ma bedeli karaynaa keyboardka? Ha, marka edit imaaw, kadib waxaa ka doorataa meesha ku qoran tahay keyboard shortcut-ka. Inta ayaad ka bedeli karaysaa. Marka shortcut-ka rabtid inta ayaad ka bedeli karaysaa. Marka qaybtan ka bedelo
okay na dhaho hadhow markaa badisid. Haddaad u baahatid sideeda hore inaad kusoo celisidna waxaa leedahay use default ayaa leedahay, qaabkeeda hore igu soo celi ayaa leedahay. Okay ayaa leynaa markaa, wax ma rabno inaan hadda ka bedelno, sideeda ayaan ku dhaafanaynaa. Haddaa laakiin adiga rabtid dul imaaw, kadibna bedel, kadibna save dhaho, kadibna okay dhaho, markaas wuu isbedeli doonaa. Ma doonayna marka hadda keyboardka inaan wax ka bedelno, sidiisa ayaan ku safgaraysan doonaa. Waxaan rajeynayaa inaad fahamteen. waxaynu balana darsiga xiga. inta ku kulmi doono darsigan mid ka xiisa badan waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.